waa sheeko xikmad iyo murti ku fadhida oo ka hadlayso qofka aan ka fiirsanin ama aan ku baraarugin ereyga uu ku hadlayo. Ogow, erey afkaaga si fudud uga soo baxay ayaa kuu horseedi kara dhibaato ama kugu sababi kara inaad noloshaada weyso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran channelkeena, soo dhawaada walaalayaal, ku soo dhawaada sheekadeena maanta. nin boqor ahaa ayaa ku riyooday isagoo ilkihiisa oo idil ay ka wada jabayaan. markaas wuxuu u yeeray nin ku xeel dheer fasirka riyooyinka. nin boqor ahaa ayaa wuxuu ku riyooday asoo ilkaha dhammaan ka jajabayaan. wuxuu u yeeray nin riyada fasiro si uu riyadii ugu fasiro. ninkii ayaa u yimid wax uuna yiri, boqorow ma hubtaa oo makaa dhabbaa in aad riyadan ku riyootay? boqorkii wuxuu yiri, haa waan arkay, ee maxay tahay riyadan? wuxuu yiri, haddaba boqorow, waxaan ka xumahay in aan riyadan fasiraadeeda aan ku maqashiiyo, waayo waa arrin muruga leh. waxa ayna tahay in reerkaaga oo dhami adigoo joogo hortooda lagugu dili doono. yacni reerkaaga idil in la dhammayn doono ama la dili doono adoo horjooga. boqorkii ninkii warkii uu u sheegay colaad ayuu ka qaaday, waa uuna ka xanaaqay. waxa uuna yiri, xabsiga dhiga riyo fasirihii. sidaas ayaa riyadii ninkii fasirayay lagu xiray. boqorka wuxuu mar kale u wacay nin kale oo riyada fasira. isla su-aashii ayuuna weydiiyey. ninkiina wuxuu yiri, boqorow ma hubtaa in aad riyadaas ku riyootay? haa. ninkii riyada fasirayay wuxuu yiri, dadkaaga oo idili hortaada ayaa lagu dili doonaa. boqorkii intuu xanaaqay ayuu yiri, kanna xira. dhowr riyo fasire ayuu u wacay boqorkii oo sidaas ku jawaabay. markii ugu dambeysay boqorkii wuxuu u yeeray nin. wuxuu yiri, bal adna riyadan ii fasir. ninkiina boqorka markuu ku celceliyay oo uu ka adkeeyay in riyada ay tahay sida uu boqorka u arkay. yacni ninka wuxuu yiri, boqorow ma hubtaa riyadan inaad sidaan u aragtay? boqorkiina uu yiri, haa. ayuu ninkii wuxuu yiri, boqorow waan kuu hambalyeynayaa. boqorkii oo yaaban ayaa yiri, oo maxaa dhacay ood iigu hambalyeynaysaa? ninkii ayaa yiri, riyadu waxay sheegaysaa in adiga aad ugu cimri dheeraan doonto dhammaan ehelkaaga. yacni familkaaga dhan ada ugu cimri dheeraanayo. boqorkii aad ayuu u farxay, ninkiina wuu abaalmariyey, weliba si heer sareysa. haddaba maxay tahay xikmadda ku jirta sheekadan? halkan waxaa laga arkayaa in luuqadda hadalka isagoo isku micno ah ay haddana sida loo dhigaya ku kala duwnaan karta. qofna qaabku hadalka u sheegaya iyo qof kale ay kala duwnaan karaan. haddaba waa inaad ka fiirsataa. nimankii hore ee riyada boqorka u fasiray run ayay sheegeen oo ehelkiisa ayaa hortiisa lagu dhammeynaya, micnaha asiga ayaa soo hari doono. laakiin ninkan farsamo isticmaal oo wuxuu yiri, waa cimri dheeraanaysaa oo dadkaadoo idil markay dhimanayaan adigu waad noolaanaysaa. nimankii horena xabsi ayaa la dhigay. waa ka halka ninka dambena si heer sare ah loo maamuusay oo boqorkiina ugu farxay. waa mahadsantiin walaalaha quruxda badan.